هوبيان ما ها هوبي قرق اللي قلنا إسداس لوريداي لكن هوبيان وحالة لها بقولي تضبط روكت وما باهنا محلها قرق إنا كرديد وما باهنا هب كان والله سمين كرابو أيضا الله سمينا الريداي أنا محكمة واتوسي دونا كان قحوتيga hadaad meel ka rabto waxa ay ninkaan oo markaas meesha joogo naag maray ninkaan iga farad u dhuumanay nus dollar dalal kama qaada ninka law ma la huraysa ma dalkaas guriyihii Garasbaaley ee gabaadka argagixisada noqday waa mid koowaad ee waxa la baalmaray habraaci sharciga ah ee kirinta guryaha loo asteeyay mudana caasimadan habkan uu ka ah xad lama dhaafaan ah marka xigtana hoobiyaal macmal ah isla guryahaas lagu farsameeyay lagana soo dhax tuuraya loo jeediyay airport-ka Aadan Cadde ee Muqdisho iyo deegaanada rayidka ay ku dhow ilaa iyo 7 jeer ayaana dhulkaas la bartilmaameedsaday 27kii bishii 2025 guriga koowaad milkiilihiisa eedeysane Salaad Xuseen Axmed Burundi ayaa loo haystaa maanta gurigii uu argagixisada soo degsaday baalmarka sharciga kareenta guryaha hoobiyahana laga soo dhax tuuray inuu ka caawiyo dhaqaaqabayaasha inay baxsadaan guri bacyaro waay meeshuu ku dhisan yahay aabe alisoo waa dhaxal meeshuu ku yeelay hal qol markii ii banaanay cid kale deganayeen qolka cid kale oo deganayeen iyo ilmaho oo wato waa isdagaalayaan dhaxdan ka kala goosaa weey ana hadda qarash kama hayo bishana 5 maroosaay bisha 6 waxa la helaa naftaas lagu kala gooyaan ana si kala goosaa ilmiiriyaal hayo weey hayaan la markaan sida uu ku kala goost yaa ku keen adiga ninka maxamed xasan maxsana ku keen oo koogu hore meel qaxooti ahaana u la raadina xataa meel qaxooti amal inaad oo degorbe waa anfici weysay meel kale oo anfici weysay markaas aan waxaan dhahay hadii meelaan ku anficin hal qol ay banaan oo awoor iga cunaya halka qol ay banaanaan halka qol aboosto waay markaas dhahay maxamed xasan isi aboosto waay isoo tusa waagay waa mee qof wata markaas hal qof isiga iyo naagtiisa ilmihiis mee caruur wata afar waday afar caruur iyo maamadii asiga halka qol mee wada degnaan hal qol iyo barsidiisa waay iyo deerka oo saas u go'an markaas ma soo hooy jirin meesha ka farwa meeya waa joogay guriga mis qabin agtii guriga inuu isla jiifayeen inay isqabaan in kale war uma hayaan haye laakiin guriga inay isla jiifayeen oo meesha isla wada joogeen aan sheegay kadibna maxaa dhacay ninkii aawiya dadkii aawan ma arkin baan waa cali soo wacay subaxdii 3 saac oo xaafadda ka soo kacay oo li soo wacay midkii la dhashtay oo ilma adeer aan nahay iyo mid aniga la dhashtay oo meesha lagu haay ay soo waceen degmada Imaawe ay dheen maxaa jiro dhibaan dhacday degmada Imaawe leeyahay waa soo orday degmada tagay markaan guri iyo waxa soo dhanba ma soo marin ba saa u soo degmada tagay sanadka xagga fadhiisaa le diyaar waayaan sida liigu soo alaabtu waa la tuuralay inta laga tuuro mar guriga laga tuuralay liido yaani mana tagin mana arkin ani ma tagin mana soo fiirin mana arkin laakiin guriga laga tuuralay liidaane degmadan siday ugu qabsatay degmada waxa uu keenay weysayeen ana degmada ma keenna dhaawo meesha laba degma ku gorobda in ilay Garasbaaley isku haystaan oo labada ciidan buu ay imaadaan labada degmo meesha waa isku imaadaan marka guriga bacyaraashii waxa degmo ma lageeyeen Umar Ismaan Mustafa Aato eedeysanahan Raaxo Xuseen Jimcaale ayaa ugu wakiil yeelatay inuu mas'uul ilaaliye ka noqdo gurigeeda una ballan qaaday in xitaa ay ka dhimayso khidmadda u jaango'an kirinta guryaha Garasbaaley hase yeeshee eedeysanaha ayaa si taasi ka duwan u isticmaalay asxaanfalkii milkiilaha waxaana gurigii uu bedelay barxadda madaafiicda goobta ay qawaariiju u adeegsato leenta si tarab ah muwaadiniinta Soomaaliyeed lama hamniga ayaa hoyga ugu tagay iyadoo ay rakabay yihiin raxan kale oo hoobiyaala gumaadna loo qorsheeyay aniga guriga horta mar dhawaan dhisay marka Umar guriga ii degay oo 2 qol labada qol asoo degan ayaa guriga oo 3 qol oo banaan oo hadda falka ka dhacay asagoo banaan ayuu anigoo tacsiye ii taalo oo walaashay dhimatay oo waxa igu dhahay guriga loo imaaday maama ma kireeyaa waxaan dhahay dadka ma taqaanaa waxa dhahay waa qolo aroos waxaan iraadad saas ay lacagta ay igu dhibeynin waa ii daji kartaa wuu ii dajiyay isla markii uu isoo wacay lacagtii 70 kugu kireeyaa haan dhacam marka wuxuu dhahay lacagtii aan ku soo tuuray wax shaah ii soo tuur waxaan dhahay guriga haddii aad ii fiicnaato guriga ayaa si wanaagsan aad iigu degnaanay qiimaha aan ka dhimaa 50 ku degnaay 40 ayaa ku degnaayaan dhahay haddii ay ii fiicnaato marka maalmo kamid oo adana iyadoo gabadh walaashay ahayd wiilka qabo oo dhintay oo bil ay ka soo wareegtay oo tacsiidi oo Madiina aan joogo oo intoo isoo wuxuu dhahay raaxo gurigi maamoy raaxami dhina maamoy gurigi ayaa wax laga tuuro agiise sidee baan yeelaa waxaan dhahay guriga hadii wax laga tuuro iyo hadii agiise laga tuuro ma tagtidaan dhahay aniga ma joogay markaas wuxuu igu dhahay waayahay
cabaar ka bacdi haddana wuu isoo wacay wuxuu dhahay aniga xaaskayga ayaa la watay meeshina ma geli karo waa cabsanaa maa ii imaadoo i raacdid waxaan idhi anima kuu imaan karo hoolan ku jiraaye degmada tagaan iray oo isgeey markaasuu wuxuu dhahay degmada ma geli kari intee tagaa isgoosi tabeelaha tagaan dhahay isgoosi tabeeluhu tegey gadoomiyahan wacay loosaa wacay gadoomiyaha markaasaa waxaa lagu dhahay ninka soo qabta meesha asoo fadhaa loogu tegay wuu isgeeyey galabtiiaan imaaday degmada tagaa lay dhahay waa tegey sidii wax u jiraan ayaan u sheegay guriga noocee waa qaabkiisa tama sharax guriga soo u dhisan yahay guriga bacweyne waaye haye 4 albaab waaye 2 oo la degnaay asaga shaqo ma ku lahayn midna asaa degnaay midna asaa kireeyey asaga hore weliga wax ma kugu kireeyey qayb kale oo la degan hore ma kugu kireeyey nacam haa oo qaybtan dadka hadda waxbay tuuran leeyahay aanan ahayn ma ku kireeyey qoladu way ka horeeyeen wax yar ka horeeyeen qaybtay degnaayeen labaad asay ku xigeen hadda ma degnaayeen soo baxeen way ka baxeen goorma ka baxeen maba is aragba iskuma gaar adii isma arkin markaas ma lacagta inta kaaga soo qaada ku soo diray maya qolada oo markii hore uu soo kireeyay lacagta ayaga ii soo direen laakiin qoladan asaga la jooga markii lacagta la soo dirayay in lambarkiisa laga soo lambarkaas oo kale laga soo diray ma sixi karo laakiin 70 eed oo wax ii soo tuuri dhay aan sixi karaa waa mashquulsanaa maalintaas ma qabili degnaay bishi kalena anigu qarashka ka sugaa qadirtaana imaad asaga markii la dejinayo gurigaaga uu degay degmada ma geys adiga maya kale la geey ma aqaan aniga kirida way igu cusubtaa kirida kugu cusubtaa waa igu cusubtaa daa su'aal weydiinaysaan Umar gurigaada markaad dejinaysay aqoon hore aad taqaanay oo kaal dhaxaysay ma jirin soo maya kaliya guriga u baahnaa oo soo dhaweysay waa dejis qofka labaad ee soo degayna asagana guriga wuxuu ku soo degay sidii Umar aad soo dhaweysay adigoo aqoonin camal soo sax okay maxkamadda xaal intaas ay diiwaan geliso Umar marka horena ma ka seenin qofka had soo degana ma garanaynin inta bayda ogolaatay guriga islaan ay timaaday markii ay timaaday guriga ay soo garaaday guri kiraan rabaa ay dhahday kadib waxaan siiyey lambarka maamada guriga iskale aan siiyey waa isween markay isween waa iswareysteen gurigaas uu banaan yahay raaxay saas ku dhaxday kadib raaxay soo wacday waxay ku dhahday qoftaas ka kiray damiin iyo degmada ana geysanayo ay ku tiraaday saas kadib lacagta dhaxmarashada lacagtana waa ii dahabay ahayd saasan ugu bedelay maamada raaxo Hussein Jumaale saas igu tiraaday ii soo bedel Umar ii soo tur lacagtaas lacagta ya raaxo u diray yaa u diray raaxo lacagta somta lahaan ii dahab la tuuray raaxo waxay igu tiraaday ii dahab ma isticmaalo ii soo bedel ii soo tur igu dhahday adaa u dirtay marka qofka ku yimid yaa ku keen adiga waa la soo aadiyay xaafadaha lagu soo aadiyay yaa ku soo aadiyay ma garanayna ma ogay guriga ay soo garaad waa la soo aadiyay dhaad inay guri meeshaas ku banaan la soo aadiyay adee hore ma kireysay guriga ما ولي ومكرين guriga muliga ma kireen ولي مكرين maxaa qabataa adiga معنا اسكول ah maxaa dhigtaa maadada dhigtaa maadada juqraafiga iyo taariikhda dhiga iskuul ba ka baxay dugsi jaamacad ka baxday jaamacad iyo iskuul waa ka baxay jaamacad ka baxay Darul Hikma University ka baxay aadiyad iskuul ka dhigtaa Al-Bushra marka meeqa bilaa ka soo wareegtay marka guriga saas aad u kireysay waxaan filaa bil ibarinay taa malena waa bishii waxay soo bishii koowaad tunzidi bishii koowaad 2005 ay soo degtay ay timaaday waxay soo degtay bishii 23 bishii koowaad 2005 ay soo degtay islaanti aw hadii uu ma heli kartaa waayo ma aqaan islaanta aqoon uma lahayn aniga carruur may weyd carruur way wadatay jumciyaha ugu dambeysay meeqay weyd 5 ad wiliga hore guri ma kireen uma kireen guri wiliga uma kireen gurigana ma degnin guri waa boss wuxuu ka kooban yahay 9 qol uu ka kooban yahay waayo qoftaas timaaday 3 qol ka banaana raaxo waayo guriga qeyban ka degnaa 3 qol ma degnin waayo ii sheekadii qaybtaas aan loo qalan ka degnaa $50 ugu degnaa marka guriga deganada kugu timid qolkan kugu deganaa kirin rubaa dhahday miya qolka kugu degan ii sheekadii guriga banaan saas ay ugu raaday saas 3 qol oo baahan ay ugu dhahday 3 qol ku kiray marka guriyada waa qayb baarta waa halka boos waa gudaheeda hal boos waa oo baarta adiga ma haya kala deganay oo dadka kala galka maadama koox kala ma deganino qolo kale way deganayeen qoladaas ka kiriyay qoladaas maamada ka kireysatay yaa ku xiray oo adiga ku hor ugu xirtay jiraan dhalinyarada dadka meesha deganay xigin kuwaas ma degan waaga ma imshay kirani ani meesha ma joogin shaqadii aan jiray degmada la igu wacay ii sheekadii saas la igu soo xiray hadda ma sheegi kariye meesha goob joog kuma ahayn Umar adiga sidaada difaac mushkilaba ma haba ada guriga deganeed qolkaana raba hadii uu dhan mushkilaba ma haba si la isku fahmo
adiga meeshaad deganeed qofkaana kugu yimid miya macnaha haa gurigaan qayb ka deganay aniga guri waa baarta waa qayb 9 qol ka koobnaad qolka 2 qol musqushiisa jikadiisa 2 qol musqushiisa jikadiisa waa 3 qol musqushiisa jikadeeda waa mar 3 qol ay kireysatay qoftaas 9 qol waa guud ahaan xaafadda guud ahaan 9 qol waa oo qayb ah marka aan 2 qol aan ku deganaa oo qayb ku deganaa nimanka yaa ku keen adiga nimanka waa la soo aadiyay yaa ku soo aadiyay mishay kiray Allahu a'lam maxamed xasan maxamed lajeer xasan maxamuud shuuriyo goobe iyo cali xasan xaayo cali dheere dalaalaydan farta ay doonaan ayay qoreen waxaana ay iska ilaaween dhammaan habraacyadii ka dhignaa kiriinta guryaha sida caadiga ahna khidmadahoodii alyoomka waa ay qabsadeen haye bal waran adiga mudane gudoomiye anigu anoo bajaaj wada waxa ii yeeray ninka goobe la leeyahay gooba ku yeeray gooba ii yeeray adoo bajaaj wada wuxuu yiri waxaan hayaa dad guri kireysay waxa banaanaa guri iga soo horjeeda oo nin oday oo leeyahay oo yiri ii kirey waan u imid xarabta kira rabnaa dheen labana iyagoo isla socda asaga iyo ninka guriga ninkan degido waxa ay guri kiradeeda hadaad la socotaan mooto bajaajkaana wada degmada idin geeyahay soo raac labadooda isla hadlay labada yaa waxa isla hadla goobe iyo ninkii oo guri kireysanay ninkii wuxuu yiri ma awoodo inaan keeno qof damiin iga noqdo goobe wuxuu yiri marka hadaad damiin hayn iga tag ma dhihin waa showreen waxa la yiri waxaan ku sii haynaa lacagta bisha 15 camal ama 20 ay ahayd lacag hormarisa oo macnaha 10 bari biyaha korontada kirada hadaad ka cabsanaysid in aan la fakano idinkama yeelayaa waa ka diiday waa iga tageen arintu ayadoo saas ay tahay oo iga tageen ayaa subaxii anigoo darbi fadhiyo waxa ii yimid ninkii guriga kirada rabay raadinayay wuxuu yiri nimankii lacag iga qaateen waxa ay haday lacag ka haystaan waa imaan doonaan nimanka lacag kaysto kuway waa goobe lacagtii uu ka hayay kale ka hayay asag wuxuu yiri waa imaan hayaan ambaar markaa meesha fadhiyana wuxuu yiri niyo aniga guri kiraa waa igu adkaato kaamkan qaxootigan rabaa inaan meel ka helo kaamkan qaxootiga hadaad meel ka rabto waxa ay ninkaan oo markaas meesha joogo naag marayay ninkaana iga faradh dhuumanay ninkaan meel agteeda wuxuu yiri meeshaana dhisanay laakiin process aad maray gudoomiyaha kaamka u tagay waa lagu diiwaan gelinaa kirada waa $7 dalaalaad isiiyay waxaana ka dhisanaysaa bacbacay waxa ninkii waa xisaabtamay meel u jeejeesto wuxuu yiri qarash ma hayo waa ka soo tagnay waxaan hayaa hal qol itusun qolkii oo noo dhawow tusay qolalkii wuxuu yiri darbiga ana iska soo xiraa ana iska habayha ayagoo heshiiskii iyo doodii wada anigu ka tagay daqiiqada ka bacdi ninkaan jidka maray arko waxa ka waran arintii ninkii saayeesh wuxuu yiri gurigii waa ka kirey waxa yiri degmada ma iska geys aad kireysa degmada ninka ma geysay wuxuu yiri degmada haddaan ka shakiyo dawladda ana u sheegaa halkaas anigu marka sheekadii ku xiray ugu dambeysay dalaal ma ka qaatay dalaal maya $1 dalaal kama qaadan ninka laba maalin la horeysa ma dalaal ka heshay maya wax dalaal iyo wax lacag iyo wax waran midna lama dhaxmaray ninkii magaciisa ma aqaan daqiiqada yar oo ninka ay tusabisa aqaan nin weyn ma hamsan yar oo ahay waa kale nin meel dhaxaad oo ah daqiiqadaha oo ninka ay tusabisa aqaan aqoon kale uma lahayn goobo tusaa argobo istaagba ninka markuu aniga yimid oo macnaha guriga uu raadinayay waxa ay soo wacay nin saaxiibkay Caleere la yiraahdo oo Caleere guri aan isla kireeno Caleere ayaa soo wacay maalma kamid ah wuxuu yiri guri kiraa oo 2 qol ayaa la rabaa waa diyaar waa imaan waan ka hayaan 2 qol asaga Caleere iyo 2 gabdhood soo socda ayaa yimid guri Maxamed Xasan oo wakiilka ah ayaan tusnay waa soo raacnay Maxamed Xasan oo waxaan gabdhahan guri kiraa rabaan gurigi xagga 2 qol ah ayay rabaan guri kale oo 3 qol oo tusay wuxuu gurigi kalena uu banaaya kana bishii markii dhamaatay ayaa laga baxayaa gabdhii guriga hadana kala fiiriyeen aniga iyo Caleere iyo Maxamed Xasan iyo 2 gabdhood markaas intaan u wada joognaa anagu gabdhihii sidii ay nooga tageen maalintii ka dambeysay ayaa waxay soo wacay 2 gabdhood gabar kamid ah ayaa soo wacday oo Caleere markii soo siiyay waxay dhaadeen gurigii 2 qol oo noo horgeysay ayaan soo joognaa nooymo waa soo baxay waa mid gurigii waxa tiray wiilkan ba ila fiirinaya natus gurigan u furay waa tusay way ku qanceen way iga tageen Caleere ayaa maalintii dambe wuxuu soo tuuray lacag $53 lacago $53 uu leeyahay macnaha 25 oo dabaaji ah iyo lacagta dalaalka iyo lacagta 10 maalmood bishii ka dhimanad waxa dhacday marka waxaan dhahay sheekada waxa la rabaa in habraac la maro ama damiin la helo ayaa la rabaa Caleero maalintii dambe Maxamed Xasan iyo ninka guriga rabay ayagoo isla fadhiya ayaan u mid waxaan dhiniyo waxa laga rabaa degmada habraac in sameeyay ana u naxaya shacabka iyo wadanka amnigiisa iyo dadkiisa oo taxgilinaya wuxuu yiri ma heli karo waxaan ri Maxamed Xasan oo saacadan laga bilaabo waxaan ninkan anigu mas'uul waxa uu soo gurna ma wadi karo haddii gula macaamilaysid iyo haddii la macaamilayn fal khayarka adigu ma xabanaantaan aniga xilligan wax ka dambeeya oo dalaal u hay ama guri ka kareen ma jirtaan bataatanba meesha ayaan ugu tagaan marka wax kale oo dhaxmaray midaaba ma jirto lacagtii dabaajiga aan ka yina waan u celiyay anigu Caleere wacay
على هاي نكن وقبل لا سعودي wuxuu dhahay lacagti dabaajiga halay celiyo lacagti halay celiyo ka waran u celi u dhahay lacagtina u celi anay isaga markii wax xilligaas saacad timekaas ay soo heedin bisan isaga هذا نورمال غوريا كريس سامع ha شغلاد ha ku shaqaystaan غوريا كريس ha waa kariya غوريا كريس ma maraysaa sida abraac hadda inta la soo xirin waan kariya degmadana geeyay habraac waa laga leeyahay sawirkii magaciisa inta waa laga leeyahay guri ama sul waa ka jira aniga oo tabeelaha ku yaalaba ciidan ka kareenayo waa geeyaa degmada geeyaa adiga nimankan intee ku aragtay markood hore wiilashan waxaan ku yiri labadii gabdhood maalintii hore Cali Xasan Iiki Cali ii keenay gabar kamid ah asagoo la socda ayuu ii yimaadeen quraan gabdhay ahayn waxa adiga aragtay maalintii hore gabdhay ahayn laba gabdhood ahayn labadii gabdhood gabar kamid ah ayaa maalinta ninka ay soo socday isla yimaadeen wiilka ninka saasan ku arkay aniga aqoon hore uma lahayn meeluu kamid ma aqoon xilligaas aan ugu dambeysay maxamed xasan waxa dhaaf raax haduu ninkan marin aniga wax shaqo ku mili daalna uma hay waxna ka kariimayn hadda isla macaamilisay adika leeyahay waa meesha ugu tagay aniga meel guri loogu kireeyay meel waxay midna ma ku warkamayaan caldeeraha u dhiib ama caldeero kaalba anoo gurigayga jooga waxaa la sidii yimid laba naagood haddii yimaadeen waxay yiraahdeen waxaan rabnaa guri kiraa waxaan aniga guri kiraa ma hayo goobaan waxa guri kiraa ma haystaan haa hawye waa soo wada labada naagood goobaa u keenay labada naagood goobada u keenay waa uu nawadiyay ninkan maxamed dheer ninkan oo meesha hadda fadhiyo wadaadka sheegay oo iigay oo noogay wuxuu yiri maxamed oo guriga rabnaa waa hayaa waa nawaday guriyihii na tusay guriga saddex mar lama qolo na tusay mar guri la degaano tusay marna guri kale jajabay waxa soo na tusay markii halkaas sheekadu maraysa aan waxaan hadii guri la helo dadkan degmadana waa la geeyaha tameen oo laga rabaa halkaas aan uga dhaxbaanay baad waa la jooga aniga waa ka tagay labadii gabdhood iyo goob iyo wadaadkan isla jooga aniga waa ka dhaxbaanay ma salaam garabkiina la gal maadaama sheekadu taas soo dabagaddoonta waxaan degmada la geeyo hadii gurigan la kireeyo degmada la geeyo tameen la helo waa ka tagay ka bacdi waxa dhacay gurigayga isaga noqdo aniga haye muddo hadii la joogo ma qan dhowr maalmood ka bacdi gabdhi mid kamid ah soo wacdo ma soo lacagay ku soo tuurtay $53 waxay tiri goobo gud lacagtii markay soo tuurtay goobo gudbiye ma salaam dalana kama qaadan xabadna kama qaadan salaam halkaas ku kala tagnay goobiya soo wacay wuxuu gabdhi lacagtu way soo tuureen laakiin nimaan la socdo ana waxaan nin shaqo ku mali aniga bataata banin shaqo ku mali gabdhan ku keenay gabdhaas guriga hadda ka kareyso degmada geey haddaadan oo ka kareen Allah ku ammaan goobo ka marka warka intaas ku ogaay wax kala ma joogo adi xaq qabta ma ka shaqeysaa marna meelaha iska tuugsada marna dalaala noqda marna dalaala noqda ma wax kala ma qab dad iska miskaakiin oo meel iska qaraabtana degmada 27 sano 30 sano deg lacagta lagu soo tuuray oo qofkii loo rabay saddex meel maraysa maxay tahay maxaa laga wadaa lacagta sababta lagu soo tuurayo oo qofkii guriga lahay aan hore looga tuurin maxay tahay wadada nab dheer loo marinayo gabarta qalad samayso waxa lacagta gabarta soo tuurtay nimankaasay soo martay aniga soo markay dib daray soo tuurtay aniga ma dhihin waa goobaha iska fadhiyo goobaha guri iyo haytir ninkaas kale ma taqaan ninkaas kale ninka kale dhexe ka ninka dhexe Umar maya isma naqaan gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Garas Baaley ayaa maxkamadda ugu warbixiyay sida loo kireeyo guryaha iyo habraacyada la maro kiisku hubiye laga tuuro degmada amnigeeda madaxda ka taaway xaaladda markii habraaca seedad guryaha loo kireeyo degmada warbixin naga sii bar gudoomiye aad u maasan tahay degmada markii ay la yimaado kireystaha iyo waxa yimaado milkiilaha kireystaha waxaan u dirnaa damiin waliba damiinta waa adkayna si xaalka oo u fiicnaado kaar dawladeed inuu haysto amba nabadoonka wasaaradda arrimaha gudaha aan u dirnaa baasaboor xataa iilaysin iyadoo la qaadi karaa si amniga loo adkeeyo looma diro warqadina iyadoo qoraalna waa soo diray iyadoo warqad caadina xeer ilaaliyaha u dhiibay oo for example oo ah isheeg sambal si loo arko marka saasaan shaqada u qabanaa gudoomiye arrinta oo ku saabsan maalintan wax dhacay rabto maqasheen waxay ahayd 27 bisha 2 2025 anigoo degmada joogaa hubiye dhacay goor 4 saac camala meeshii goobihina waa tagnaa kadib baaritaan la sameeyay markii wax baaran nabasuuda si qaas u leh meelihii waa tagnay laba guri ahaayeen oo laga kala tuuray markaan tagnay oo dadka la wacay baaritaankii waxa la wareegay ishaga nabasuuda la wareegtay baaritaan maalintaas aniga goob joogan wax dhaceen anaga processka aan ku shaqeyno qofta markii degmada aan keenno waxaan u dirnaa damiin wax looma qoro warqadaas loo diraa markaan ka dhamaano xafiiska nabasuuda geynaa systemka nabasuuda la geliyaa saasaan wada shaqeynaa laamaha amniga dadkaas ma taqaanaa qaar kamid ah hore wax kugu keeneen oo habraac mareen ma jiraan raggaas dambe maya dad aan qaan wajiga soo qabaan xafiiska oo aan ku arka ma jiraan weli eedaysune salaad wuxuu sheegay inay jirto Garas Baaley
laba maamul degmo oo arrimahan ku muransan diiwaangelinta arrintaas ma jirtaa waxaa jirta waax ka mid ah oo la isku haystaa jirto guriga salaad waaxda la isku haysto ayuu ku yaalaa Soomaa labada guri hoobiyaha laga tuuray midna waaxda la isku haysto midna waaxda aan la isku haysan waay guri salaad ma taqaanid miyaadi maya laakiin waxaad maxkamaddu cadeynaysaa labada guri midna inuu ku yaalo waaxda la isku haysto midna waaxda kale ku yaalo niyo waxaa jirta waax oo gobolka Banaadir oo sacalaamayn oo garas baalle iyo deynayla isku haystaan bulshadan ay ku dhiban tahay laba cashur laga qaado jirto labada guri ee wax laga tuuray mid ka mid ah waaxda la isku haysto ku yaala Soomaa si fiican mararka qaar ma dhacdo adigoo degmada ka maqan ama shaqo ku maqan dadka inta yimaadaan la diiwaan geliyo la sawir xogtooda la diyaariyo galbiyo kale ama dowladda marka dadka tagaan inta imaado kali uu saxiixa u imaado dadkii adoon arkin meeshaas faahfaahin kara wax qabadana waa faahfaahin kartaa gudoomiye anaga dadka markay noo yimaadiin kireystaha iyo milkiilaha waa isla socdaanbe anaga kireystaha waxaan u darnaa damiinka markaan u dirno ninku wuxuu ku leeyahay soo waca ana damiinka waxaan waxas ma yeelan anaga noo suuli saxiixan ka rabnaa noo imaad waasi waa qofta markay timaado oo laba qofood isla yimaadiin saddexda qofood qof walba waa fiiri kartaa saxiixda saaran markaasaan u kala qornaa milkiilaha waxaan ka qaadnaa sawir warqadan ku rajinaa damiintaana ee dhikaarkiisaan meesha aan ku calaamaynaa shaqasaasaan qabnaa anaga garmaqalkan intii uu socday xafiiska xiraalinta ayaa soo bandhigay raadadka la shaqaynta argagixisada ee qaar ka mid ah eedeysanayaasha iyo khasaaraha ka dhashay hoobiyaashii la soo tuuray eedeysanaha gurigiisa waa kana sida ay hore u sharaxeen markaatiyaasheenna gurigiisa ayuu dadaal uu argagixisada u dadaalayo kala qaybiyey wuu kala jaray kooxda argagixisada waxay u baahneed hal qol kaliya ay ku dhigtaan agabyada qaraxyada ee sida dhumaalaysiga ee magaalada ay ku soo gelinayaan dadaal uu dadaalayo ayuu u kala jaray bacdaasoo ku waxeeyey bacda hadda uu sharaxayo baarihii kiiska waa bacdaas argagixisadoo qayb u jaray qolkaasi ayay wax ku habaysanayeen marka jawaanadaas aad hadda u jeedaan waa jawaanadii ay kor saarteen hoobiyaasha argagixisada marka ay tuuraayeen marka qaybtan waxa u dhisay waa salaad al-shabaab ayuu sidaas ugu dhisay si ay meeshaasi dhagar ugu fuliyaan eedeysanaha shabaabka xiriir ma la leeyahay mise lama laha waxaan soo daabacnay xiriiradii uu la sameeyey dhagarqabihii uu gurigiisa dejiyey ayadoo daabacan ayaan maxkamadda la wadaagi doonaa iyo lacagaha ay isweydaarsadeenba waa kana hoobiyihii gurigiisa laga tuuraayey goobta dembiga markii hoobiyaasha ay dhaceen ayaa gurigaa la yimid laamaha amniga ayaa yimid ayagoo sidii u diyaarsan ayaynu u imaadeen markaan waa mar laga furay qalabkii uu ku qarxin lahaa ama taleefonkii iyo wixii niclayaasha ayadoo laga furay waaye laakiin sidaan waaye siday u ridaayeen argagixisada gurigana waa gurigiisa waxaa argagixisada u fududeeyey marka inay hoobiyaal ka tuuraan gurigan eedeysane cumar ayaa u fududeeyey asaga ayaa gabaad siiyey asaga ayaa qariyey asaga ayaana ka dambeeyey hoobiyaal in laga tuuro gurigaas isla markaana la baxsado goobta dembiga markii ay kooxda miina baarista booliiska ay tageen wixii ay ka heleen iyo raadadkii loogu tagay goobtaas ayaan maxkamadda la wadaagaynaa waa guryihii ay kireeyeen eedeysanayaashan waa guryihii gabaadka ay eedeysanayaashan ku siiyeen kooxda argagixisada marka meeshaan ka hadlayno raadadkii guriga waa kuwana ayagoo ay ku diyaarsan tahay hoobiyaashii markaan waa hoobiyaashu waa kana waa ku xiran yihiin inta waa laga riday inta waa laga riday inta waa laga riday imise hoobiyaa laga riday guryahaas labada guri mudane guddoomiyey hoobiyaashani waxay ahaayeen 10 xabo 7 xabo waa la riday 3 xabana goobta loogu tagay 3 xabo goobta loogu tagay kooxda MBB-da booliiska lagu wareejiyay ayaga ayaana qarxiyeen oo dib u qarxiyeen si nabada laakiin 7 xabo ayay ka rideen kooxda argagixisada ee al-shabaab guryaha eedeysanayaasha intaana loogu tagay goobta ayadoo diyaarsan oo weli aan ridin waana laga badbaadiyey si aysan naf kale ama hanti aysan u qasaarin 7 xabo ee la riday 6 kamida waxay ku dhacday degmada wadajir khasaare ay geysatay waa soo bandhigi doonaa hal kamida hoobiyaashaas wuxuu ku dhacay degmada Dharkeeley hal qof ku dhaawacmay iyo wiil yar oo caruur ah oo firir yar gaaray khasaarana waa geystay waa soo bandhigi doonaa hoobiyaasha goobta loogu tagay ee la safgareeyay waaye ee laga hortagay inta aysan waxyeelada geysan waxaas waa niclaha lagu qarxinayo hoobiyaha ma aha hoobiyihii qoriga la gelinaayay ee sidaas loo ridaayay laakiin hoobiyahan waxaa la dhahaa 107 mm rocket uma baahno maxaa la qori ina ku ridid iyo uma baahna habkaanaaba loo sameyn karaaba ayadoo la sameynayo ridaayana maxkamadda waa tusi doonaa agabkan waa agabka lagu ridaayo hoobiyaashani agabka lagu ridi doono loo isticmaalayo argagixisada u isticmaaleen waa agabkan
waxaana sharaxay qabiirkii ka tirsanaa MBB-yada inta MBB-yada aan ku wareejinay ay qarxiyeen waaye intaan waa goobtii gurigii halkaas waa meesha ay alaabta ku qarsanayeen qaraxyada halka ay ku qarsanayeen godadkaas gurigu ka qodan yaa u fudeeyay in godad laga dhex qoto guriga oo dhagar laga soo maleega meeshaan yaa ka dambeeyay eedeysanayaashaan ka dambeeyay in laamaha amniga laga fakad yaa ka dambeeyay eedeysanayaashaan ka dambeeyay sidoo salaad ku ogolaaday in gurigiisa uu qol ka mid ah gooni u bixiyo musqul iyo waxayna u habeeyo godad kalena laga sii faago oo lagu qarayo qaraxay soo ku ogolaaday salaad hadduu shabaab ka tirsaneen taas waxay cadeynaysaa inuu shabaab ka tirsan yahay cadeynaysaa meesha ay ka ridayeen waa inta muuqaaladii laga soo duubay waa shaqada dhan inta la qabanayo salaad intuu jiray wuu ka warqabay shabaabka asagaa laftirkiisa raali lagu ahaa waa shabaab kale salaad degmada Dharkeeley hoobiyihii ku dhacay ninkan ayaa ku dhaawacmay waa kaasaa hoobiyihii fuuqiisina halkani waa degmada Wadajir dhimasho iyo dhaawac ma dhicin laakiin qasaarahaas ayuu geystay oo gurigaasi ayuu kor uga soo habsaday ilaahay dadku uu ka badbaadiyay meeshaan waa kana macnaha 7 xabo ee la riday mid walba meeshii uu ku dhacay ayaa loogu tagay booliiska ugu tagay kan ilaahay dad wax ma gaarsin meel barxad ku dhacay kanna barxad ku dhacay kan qashin qub ku dhacay kan waxba kuma dhicin asna sidoo kale barxad ku dhacay kanna meeshaan ku dhacay cid wax gaartay malaha ilaahay dadku ka badbaadiyay laakiin dhagar qabayaasha kooxda argixisada ee al-shabaab waxay ugu tala galeen inay shacabka Soomaaliyeed ku xasuuqaan intaas ugu tala galeen ilaahay dhagartoodu dadku ka badbaadiyay eedeysanayaashan waa kuwii u fududeeyay in al-shabaab ay ku dhax dhuumaaleystaan magaalada Muqdisho isla markaana hubiyaal ay ka soo tuuraan ayay u fududeeyay haddaysan garbaan leeyahay al-shabaab waxba kalba dhax sameyn lahayn xamar ku xigeenka xiraalyaha guud ee ciidamada gaashaana dhexe Axmed Cabdallah ayaa garsoorka ka codsaday inuu horeyn dowladda ay la wareegto guryaha weerarada hoobiyaasha laga dhex fuliyay isla markaana dhammaan eedeysanayaasha lagu qaado qodobadii sharciga ay ku soo eedeeyeen xafiiska xiraalinta ciidamada eedeysanayaashani waxay gabaad siiyeen kooxda argixisada ee al-shabaab waliba koox shabakad hoobiyaal ka tuuri rabta magaalada Muqdisho 27 bish oo qarshooda ah inay ka tuuraan eedeysanayaashan ayaa soo dhaweeyay midba midka kale ay u dhiibay 3 dalaalid ah ilaa loo geeyo ama lagu xiro eedeysanayaasha koowaad iyo labaad oo guryo milkiilayaalka ah markii loo geeyay kadibna ayagoon marsiinin processkii degmada ee diiwaan gelinta iyo damiin u dirista ay dejiyeen guriyihii dadaalka dheeriga uu sameeyay salaad oo ah eedeysanaha koowaad waxa waayaba inuu u dhisay gurigiisa nin al-shabaab ka tirsan oo qorshe meeshaas ku maleegayo ay gurigiisa u dhisay musqul iyo biigelin iyo alaab xataa wuxuu sii sameeyay qarin oo daamin iyo wuxuu ku sii qaray waxyaabo kale oo ku sii qariyay si dhigirtiisa uu meesha u sii fiicnaato halkaas muddo bil ah ayay waxay xabad u keenayeen qaraxyada iyo waxyaabihii meeshaas lagu maleegi lahaa ayay xabad argixisada u keenayeen guriga salaad iyo guri uu mas'uul ka yahay Cumar intaasba way ogaayeen oo laamaha amniga lama wadaagin markii ay soo dejinayeen way ogaayeen oo laamaha amniga waa ka qariyeen maysan marsiinin borseeska salaad horta waa u bareero asaa milkiile iskala gurigiisa asaa iskala u dejistay laakiin Cumar markii uu wacay qofka milkiyada iskala gurigaas wuxuu u sheegay inuu asaga mas'uul ka yahay ana aqaano yiraahdo ku kalsoon intaas wuxuu qarinayay inay nimanka shabaab yihiin maamadaas miskiinta oo gurigaasi ilmaheeda ka biilato oo kireysato oo lacagtaas inaysa $50 iyo $75 ah ka qaadato eedeysana Cumar ayaa u maleegay in al-shabaab gurigeeda la soo dejiyo mudane gudoomiye salaad markii loo sheegay in ninkan uu degmada geeyay wuxuu yiri iska dhaaf hadduu shabaab noqdo xataa anaaba ka faa'iidaybe wuxuu ka faa'iiday xabsi oo ka faa'iiday maanta wuu ogaa marka ogaale ku ahayd iska dhaaf markuu leeyahay ogaale ku ahayd inuu shabaab yahay ninkaas uu ogaaba dhagartii meeshaasi laga maleegayay muddo bil ah ayaa waxaa la keenayay marka qarabkii qaraxyadaas laga fulin lahaa sida aan maxkamadda hadda ka hor sharaxay hoobiyaha meeshaasi laga tuuray waa 107
oo haddana qaabka loo fulinayo qori aan u baahnayn moobeel iyo fiilooyin iyo waxyaaba la isku xirxiraayo ah eedeysanahan guriga ay isla deganaa labada eedeysanaba guriyay la deganaayeen cumarna wuu la deganaa salaadna wuu la deganaa salaad horta ninka oo qorshaha fiican dejiyey waayo gooni u bixiyey gooni u jaray hal qol oo guri kula kaban ayuu gooni ugu jaray waxna wuu ugu sii xiray biyina wuu u geliyey musqulna wuu u sameeyey haddaba mudan guddoomiye eedeysanayaashani faldembiyeedka aan ku soo eedeynay way ku caddahay iyagana qiraal ay ka yihiin waxaan maxkamadda hor keennay markhaatiyaal nool oo ku caddaynaya kiiskan waxaan maxkamadda hor keennay caddaymo ku caddaynayo eedeysanayaashani in faldembiyeedyadani ay geysteen haddaba mudan guddoomiye barnaamijkan ah boroseyska kiraystayaasha ee degmooyinka waxaa jira dad iska dhayalsado oo fududeysto oo aan marsiinin habraaca loogu talagalay degmooyinka qofka kiraystaha ah dad fududeysta ayaa jiro dadkaas ugama imaadaan qaarkood dhibaato ugama imaato laakiin qaarkood ayaa dhibaato ugu imaan kartaa oo sidaan oo kale ay ku dhici kartaa waxaan ka hadlayo waxaa waaye kiiskani wax dhaafsiisan macnaha markaan ka hadlayo laakiin kiiskani markii aan ka hadlo dadkani waa ugu talagaleen inaysan degmada geenin sababtoo ah maxamed xasan oo kale hadda eedeysanaha saddexaad oo kale markii uu u geenayay eedeysanaha koowaad wuxuu u sheegay inuu degmada marsiiyo ninkaa degmada marsiiyo damiinka iyo broseska la marsiiyey wuu diiday iska dhaafooyin marka meeshaani ku talagal ayaaba jirabo si aan loogu khaldoomin anagoo rabo haddana ku talagal ayaa jiro oo eedeysane salaad iyo cumarba waa ugu talagaleen cumar milkiyad iskama laha laakiin wuxuu u hoosaasiyey qofkii milkiga iska lahaa lambar 2 markii hoobiyaasha la tuurayna wuu fakaday wuu cararay ilaa maamada ay ka shaqeyso sidii lagu soo qaban lahaa eedeysanaha taasi waa cadda asagaana u hoosaasiyey maamada uu ku yiri ana aqaano ana ku kalsoon maamadana waxay ugu kalsoonaatay horay ay u soo dejiyay dad aroosa sidaas awgeed mudan guddoomiye kiiskani waa iska cad yahay waa kiis clear in kooxda dhagarqabayaasha ee al-shabaab ay eedeysanayaashani gabaad siiyeen way iska caddahay ayagana qiraalay ka yihiin cadeymaha iyo markhaatiyaasha aan keenayna way ifinayaan saas darteed mudan guddoomiye waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in dhammaan eedeysanayaasha lagu wada xukumo qodobadii aan ku soo eedeeyey halka eedeysanaha koowaad ay maxkamadda ku xukunto qodobka 32 u gooniyo yahay isaga qodobka 32 oo xeerka la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegayaa in haddii hanti argagixisada ay leedahay oo meeshaas ay jirto in hantida lagala wareegayo waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in eedeysanaha lagala wareego dhulkii dhagarqabayaasha uu dejiyey ee hoobiyaasha ay halkaas uga tuureen ee shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayeen in ay dawladda kala wareegto hay'adda nisana lagu wareejiyo si ay meeshaasi uga dhigato rug eedeysanayaasha kale dhammaantoodna lagu wada xukumo ciqaabaha ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeeyay maxkamadda sharafta la waa maasantahay abuukaatayaasha eedeysanayaasha ayaa dhankooda fadhigan ka jeediyey difaaca muwakkiliintooda mudane guddoomiye waxaan qareen u ahay eedeysanaha koowaad salaad xuseen axmed si waafaqsan qodobka 15aad habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan halkan u soo istaagay inaan guto waajibaadka ku xusan qodobka 16aad ee habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane guddoomiye xeer ilaaliyuhu marka uu ku jiray marxaladii 114 ee habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed cadeemaha lidiga ku ah salaad oo halkan laga soo bandhigay waxay ku koobnaayeen oo kaliya qiraal la sheegay inuu bixiyay salaad si waafaqsan 68 habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan rabaa mudane guddoomiye marka koowaad inaad dul istaago qiraalka la sheegay ee cadeen ahaan loo adeegsaday ee la sheegay inuu bixiyay salaad aan qareenka u ahay waxa uu ku saabsanaa qiraalkaas mudane guddoomiye halkan sida laga sheegay lagana akhriyay qiraalka uu bixiyay salaad kuma jirin hal arin oo cadeynayso inuu faldamiyad geystay qiraalku wuxuu ka koobnaa
inuu su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa inuu guriga leeyahay wuxuu ku jawaabay haa guri aabbahaynaa ka dhaxalnay arrintaas ma aha arrin faldambiyeed ay ka dhalanayso waxaa kaleeto sheegay oo ku jiray qiraalka guri inuu kareeyey guri in la kareeyin faldambiyeed ma aha oo dembi kama dhalanayo marka sidaas darteed nuxurka qiraalkini labadaas arrimood buu ku taagnaa sidaas darteed qiraalka uu sameeyey salaad looma adeegsi karo caddeen oo ah faldambiyeedka lagu eedeeyey ee ku xusan qodobada 6aad 11aad 7aad 8aad 21aad 26aad iyo 32aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada qodobadaas faldambiyeedyada ku xusan qiraalka uu bixiyo salaad uma noqon karo caddeen waayo qiraalku wuxuu tilmaamayaa oo keliya guri inuu leeyahay kireeyina cid kale ka kireeyey ay u keeneen dalaaliin sidaas darteed qiraalkaas ma aha caddeen liddi ku noqon karto ama tilmaamayso salaad inuu faldambiyeedka lagu eedeeyey galay qiraalku wuxuu macno yeelan karaa oo macno samayn karaa oo keliya marka aad qirito garsooraha hortiisa aad ka qirito faldambiyeedka lagu eedeeyey markaas ayaa waxaa la dhihi karaa caddeen bay u tahay qofkaas markaa ka soo gudbo qiraalka halkaa ku soo dhaaf mudane guddoomiye wax caddeen ah haba yaraatee waa la keeni waayey maxkamadda horteeda oo aanan ahayn guri ayaad leedahay guri ayaad kiraysatay waa run guri inuu leeyahay waa run guri inuu kiraystay laakiin si waafaqsan mudane guddoomiye qodobka 35aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya farqadiisa 12aad waxay si cad u sheegaysaa mas'uuliyadda dembigu waa shakhsi qofna looma ciqaabi karo faldambiyeed oo cid kale ay geysatay haddii aad maanta guri aad leedahay qof uu kaa kiraysto faldambiyeed sameeyo tusaale ahaan dhac kufsi dil wax lamida uu sameeyo ciddaas unbay ku eg tahay faldambiyeedku gudub ma leh qofkaas ayaa loo ciqaabi karaa looma raaci karo gurigaada ayaa adig guriga ayaad ka kiraysay guriga ayaad leedahay daris baad la ahayd saaxiib baad la ahayd waxaa kaloo qodobka 20aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa uu leeyahay qofka markaa faldambiyeedka lagu eedeynayo 3 arrimood waa in la helaa fal waa inuu geystaa falkaas waa inay natiijo ka dhalataa natiijada iyo falkina sabab xiriiris inay jirto ma jirto fal oo geystay oo ay natiijo ka dhalatay salaad xeerlaaliyu halkaa markuu taagnaa ugu dambeysay wuxuu yiri qodobka 32aad salaad baa gaar u tahay marka arrintaas waxay mudane guddoomiye waxay tilmaamaysaa xeerlaaliyuhu iyo eediisa iskama warqabaan iyo warqadiisa warqadda eedeysanayaasha kalena way ku eedeysan yihiin salaadna waa ku eedeysan yahay afka iyo qoraalkiisa iskhilaafsan qodobka marka ani waxaan rabaa inaad dul istaago qodobka 32aad ee lagu eedeeyey salaad keligiis laguma eedeynin muxuu ka hadlayaa in lala wareego hanti buu ka hadlayaa mudane guddoomiye hantida marka lala wareegaayo habraac sharci tilmaamay ayaa loo la wareegaa iskala wareeg maaha guriga uu leeyahay waa guriga uu leeyahay salaad iyo walaalihiis ay wada leeyihiin kireysteen kiradii ka soo baxana ay biilinayeen haddii ay ciddi degtay faldambiyeed geysatay mudane guddoomiye waxay ahayd keliya qofkaa in loo raacdo maxkamadda la hor keeno ee suurtagal ma aha adiyaa dejiyey adiyaa iska leh waa run gurigaana iska leh laakiin guri wax ma samaynin qofka degan baa wax sameeyey qofka degan ee mudane guddoomiye ma jirto hadda ka hor qofkaas oo ay wax ku caddaadeen ama hadda ka hor arrimaha loo xiray oo salaad wax maxaa ka kireey ma jirto qofna lama garan karo calaamad gaar male qofka marka sabab oo hantidiisa loola wareegaa ma jiri karto mudane guddoomiye sidaas darteed maadaama la cadeey waaye eedaha dhan qodobada eedaha ku xusanoo dhan oo aan jirin qof cadeeyey ka mid noqoshada maxaa la yidhahdaa kooxda argagixisa ah inuu gabaadsiiyey iyo
iyo qodob kasta oo eedda ka mid ah oo waxyaalaha uu sheegayo la caddeey waayey maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa inay ku waydo eedda ee afka aan dhaafin iyo warqadda muwakilkeeda salaad loona celiyo xurriyadiisa si waafaqsan qodobka 122 ee habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda ma hasantahay بعد سلام magacaygu waa awkaato Cumar Cabdiqaadir Abuukar Cumar Dheere waxaan awkaato u ahay si waafaqsan 15 16 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed Cumar Cismaan Mustafa Axmed Caato iyo Ali Xasan Xaayow Maxamuud Cali Dheere haddii aan ka bilaabo marka Cumar Cismaan Mustafa Cumar Caato marka eediisa loo aqriyo maxkamaddu wuxuu ugu jawaabay dambigani ma gelin eedeysanu markuu ku jawaabo dambiga ma gelin macnaheedu waxa automatic xafiiska xariiranta waxaa saaran si waafaqsan 110 iyo 163 culayska caddeynta inuu yani caddeyn sax ah waafi ah dhammaystiran la arki karo inuu kusoo eedeeyo haddii horta aan ka bilaabo taariikhda eedeysanu Cumar horta waa nin jaamici ah aqoon-yahan ah ka baxay jaamacad bartay kuliyadda caafimaadka gaar ahaan laboratory haddana ahaa macallin abaabiye barbaariye arday Soomaaliyeed soo saaray wuxuu ka mid ahaa tiirarka ugu muhiimsan ee dalku uu leeyahay maadaama uu ahaa qof macallin ah dad soo saara ama dad waxa la jiray arday soo saara Cumar waxa lagu soo eedeeyay qodob kala duwan oo aad u fara badan qodobadaas oo hal qodob ka mid ah xataa caddeyn iska dhaaf xataa wax u dhow la keeni waay koow waxa ugu horeeyay ku biirid iyo inuu tababar u gal kooxda al-shabaab qofka marka la leeyahay al-shabaab baa tahay qodobkan lagu eedeynayo hal roo in la keeno caddeyn meel oo kaga biira haddii caddeyn la keeno in la keeno khiraal asoo dhahay anaa shabaab ku biire tababarkaasaa gale haddii la waa in la keeno qof markhaati oo dhahay ninkan shabaab ku biire waa la yaqaan noocaas iyo noocaas waay intaba looma keenin inta qodob halkan ku qoran lama keenin waxaa kaloo cajiib qodobada qaar ma ahan qodobo uu qaadi karo ma ahan qodobada qaar ciqaabtooda waxay ka badan tahay 15 sano 20 sano qofkane haddii lagu eedeynayo qodob ciqaabtiisu ay ka badan tahay 10 sano sharcigu wuxuu cadeynayaa in cadeynta oo culayska ay tahay mid dhameystiran cadeyn culays aan dhameystirneen qodobka ciqaabtiisu ay ka badan tahay 10 sano qof lagu ma eedeyn karo intaas marka laga soo tago Cumar muxuu yahay horta Cumar waa kireysta guri weyn oo ka kooban 9 qol kala xirxiran 3 qol iyo 2 qol oo kala xiran qaarkooda wuxuu degnaa 2 qol iyo musqul iyo jiko wuxuu ku degnaa $50 ah guriga wuxuu degnaa muddo 6 bilood wax ku dhow aroos cusub oo ahaa shaqadiisuna macallimay ahayd guriga markuu dagaayo wax hanaan degmo ah oo la marsiiyay ma jirin wuxuu ka kireystay milkiilaha guriga iska leh si sharci uu kireystay lacagtoo ku wareejiyay waa furiya farta laga saaray sidoo ku dagay waxaa lagu soo eeday Cumar inuu ahaa masuulka guriga Cumar ma ahayn masuul guri sidoo bana anaga waan naqaanaa dadka halkan joogo kulli sharci yaqaan waaye guri marka qof masuul looga dhigayo nidaam sharci oo notaaya la marsiya wax hadda la soo bandhigo inuu guriga masuulka ma jirin laakiin waxaa jirtay wax Soomaalida ay isticmaasho ee isku fahmaan oo ah qofka in wax loo sii gaarsiiyo milkiilaha guriga iskale ayaa Cumar waxay ku tiri hadaa aragto dad guriga kireysanayo ii kirey suu qof maraasanin guriga inuu yani kir u baahan yahay ma shaacinin soo gurigiis jooga albaabka loo soo gargaraacay gabadha u soo gargaraacday gabadhii wuu ka furay maxaa u baahan tahay guri karaal isoo tilmaam gurigan qolol ma ka banaan yahay qolol waa ka banaan yahay maamadiyo wacay wuxuu yiri qofaas socdo kir iiga baahan oo dhahay guriga يعني قلنا مكبنايين قفكاس ما ككيريا maamadu ma dhihin degmaha la marsiiyo ma dhihin damiin haloo yeelo waxay tiri hadduu qofkaas iska bixin karo kirada korontadii biyahan uusan igu boodinin yani kaliya waxay culays u aragtay in gurigaasi looga tago korontadii biyo ku taagan haddii korontada iyo biyaha ay iska bixin karto ay tahay qof nadiif ah oo daacad ah soo dhaweey guriga daji lacagtan aan lambarkay ku soo dirto Cumar intaasuu qabtay masuulna kama ahayn maamadan iidaa ogolaatay علي حسن حايو محمود علي دير waa nin oday ah da ah 60 abaf ah 60 sano ka weyn
dalaal ku shaqaysta iska maskiin ah sidoo guriga jooga laba qof oo u imaaday haddii u imaadeen labada qof oo soo dhaweey maxaa rabtiin uu yiri waxay dheen guriyaan rabnaa wuxuu guri ma haynin saaxiibkay goob la haayo waa soo wadiyo goobihi u keenay dadkii guriga la tusiyay guriga waa ku qanci waayeen kadib waa ku qanceen lacag u soo tuurteen lacag u soo tuureen wuxuu yiri degmada nilgeenaya asagii goob labadoodba laba dalaal active oo nidaamka yaqaan waay dadkii waa diideen waxay lacagtaha loo soo celiso lacagtii loo celiso ilaa hadda kaliya baaruhu wuxuu sheegay inuu u haayo transactionka dhaxmaray transactionkuna wuxuu ahaa transaction loogu soo diray lacagtaani gurigaani yani waxa lacag deposit ama dabaaji ah waay iga sii qabso korontada iyo biyaha horumariskeeda iyo dalaalka markay diideen in la marsiyo labadii gabdhood wuxuu yiri may aniga lacagtiin cishta degmada hadaan marin fasaxatiin markay dhacday degmadii looga wacay degmadii oo tagay waa la wareystay laama amniga wareysteen nabadsugidaa wareystay waa la soo fasaxay hadduu dambi leeyahay markaas la xiraa waxa la soo xiray 4 bil kadib la soo xiray bishii labaad la wareystay waxa la soo xiray bishii lixaad waqti badan u dhaxeeyo hadduu ahaa qof dambiile ah hadduu ahaa qof ka tirsan al-shabaab hadduu ahaa qof la shaqeeyo al-shabaab marka la fasaxay 4 bil ayuu wuxuu joogay Garisbaale iyo xaafadiisa Kaaraan waa baxsan kar shabaab aadi kar hadduu shabaabnimo isku ogyahay ama uu yahay xubin ka tirsan al-shabaab oo la shaqeeyo meeshii laga rabay wuxuu mudnaay in inta la maamuuso la dhiiri geliyo la dhah dalaaliinta kale cali dheere iyo goobe falka ay sameeyeen ama ficilka ay sameeyeen ku dayda ayay ahayd ma mudna in la soo xiro ma mudneen maanta in maxkamadda la keeno oo la soo eeday oo dambi dusha laga saaro waxay mudnaa in la dhiiri geliyo waxay mudnaa in la dhaho ninka dadka ha lagu daydo laakiin taas ma dhicin maadaama marka labadoodaba aanan hadda loo haynin wax caddeyn ah wax sheegaya inay waxa la dhihi jiray al-shabaab yihiin kaliya ay ahaayeen dad labadoodba masaakiin oo duruufta danta loogu faa'iideysto haddana marka la yimaado eerida Garisbaale halkan gudoomiyaha ku-xigeenka amniga marka aan wareysanay wuxuu sheegay waaxda afraad inay tahay meel ay ka jirto murun ay isku haystaan degmada Daynile iyo degmada waxa la jiray Garisbaale anaga ka talino waa eeri yani territory oo buuq ka jiro waay ma ahan territory waxa la jiray la isku waafaqsan yahay ama la isla ogol yahay waa meel waxa la jiray oo culays ka jiro waxyaabaha keenayna markaad fiiriso culaysaadkan waxaa ka mid ah dadku badana ignorance ayay ka yihiin jaahil ay ka yihiin waxyaabaha qaar sida awgeed marka anigoo hadalkayga soo koobay soona gabagabaynayo maxkamadda safta waxaa ka codsanayaa Cumar Ismaan Mustaf Axmed Caato waa nin jaamici ah waa nin aqoon-yahan ah waa nin barbaari ah waa nin bulsho soo saaro waa nin macallin ah shaqo oo ku leeyahay male mas'uuliyad dambi asiga uusan dusha saarin oo uusan galina ma qaadi karo maxkamadda waxaa ka codsanaya irto kow in 122 ay ku weyso xuriyadiisana ay siiso haddana san u imaado cali dheere waa nin 60 abaf ah waa qof da ah waa qof waayeel ah waa nin maskiin ah dhagaha ka jigo wax badan aanan maqli karin haddana wax loo haysto waxa maanta loo maxkamadeeyo meeshaan lama keenin waa maxkamaddu waxaan ka codsanayaa iyadoo u fiirinaysa qodobka 126 in maxkamaddu san xuriyadiisa ay siiso maadaama uu yahay qof waayeel oo patient ah waxa la dhihi jiray xanuunsan inay xuriyadiisa siiso waxaa kaloo maxkamadda ka codsanaya in labadooduba si degdeg ah oo bilaa shuruud ah bilaa damiin inay xuriyada u siiso maadaama la keeni waaye caddeyn lagu qaadi karo ama lagu xukumi karo maxkamadda waa maasantay xafiiska xeer ilaalinta marka muxuu ku soo eedeeyey muwakkilkan wuxuu ku soo eedeeyey qodobo dhowr ah qodobada uu xafiiska soo eedeeyey waxaa rabaa in qodob walba aan dul istaago iyo inuu ku sifooway iyo xiriir kala dhexe muxuu yahay qodobka 6 faqradiisa labaad uu xafiiska ku soo eedeeyey iyo qodobka 11aad qodobka 6 faqradiisa qodobkaas wuxuu ka hadlayaa qof xubin ka ah urur argagixiso qodobka 11aadna wuxuu ka hadlayaa gabaadsiin iyo qarin mudan gudoomiye garsoorayaal marka fiirino sharciga sidoo u qeexaya qodobada qodobna wuxuu leeyahay qofkan dambiga waa lagu ogyahay xubin ka tirsan waa haddana xafiiska xeer ilaalinta wuxuu ku eedeynaya uu leeyahay mar kale gacan uu siinayo marka qof inuu garab siiyo gacan uu siiyo ama gabaad uu siiyo qof kale micnaheedu waxa waa qofkaasi ma ahan xubin ka tirsan meesha qodobkaas marka uu ku soo eedeeyay labada qodob xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeysay way isburinayaan sababta aan meeshaas sharxaad uga baahanahay in muwakkilkeena Maxamed Xasan uusan ahayn urur argagixiso uusan garab siinin waxa halkan ka cadeeyay cadeynta ugu weyn oo xafiiska xeer ilaalinta uu meeshan keenay oo baarihii kiiska ahaayo muddadii galkan uu soo bilowday ilaa haddeer soo baaray
baarihii su'aalo aa weydiinay oo halkan uu ku sheegay uu ugu jawaabay waxay ahaayeen in maxamed uu guriga markaasi uu tusay laga tuuray waxyaabahaas dhacay ma jirin guriga inuu kiriyey ma jirin in dadka guryaha oo dembiga lagu galay dadkii qofka geeyey ama mas-uulka ka ahaa ma ahayn milkiile guri ma ahayn keliya waxaa waaye in eedeysane oo asigana gurigiisa lagu haysto in wax laga tuuray keliya inay isyaqaanaan oo diris ay ahaayeenoo muddo marka mudana guddoomiye xafiiska xeer ilaalinta qodobkaasi oo uu ku soo eedeeyay qodobadaas uu ku soo eedeeyay qodobka 6aad iyo qodobka 11aad iyo muwakkilkiina markii iyo baarista halkan lagu soo bandhigay iyo xitaa xafiiska xeer ilaalinta sharaxaadiisa ma iswaafaqayaan mana ku sifoowin inuu qodobkaasi galay una ku dambaabay una jabiyay waliba markaanu imaado qodobka 17aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada wuxuu sheegayaa ku xadgudub xarun dawladeed maxamed intuu xarun dawladda ugu xadgudbay meeshana lagu soo bandhigay nin bajaaj la ah waa oo xaafadiisa degan bajaajtiisa ku shaqeysta haweenkiina gurigiisa u hoyda qofka markuu xarun dawladeed ku xadgudbay waxay noqon kartaa in fal uu asiga hogaaminayo argagixisonimo ah ama tiim asiga uu yahay ama xitaa uu ka tirsan yahay inay baxaan ay fal meel ka geystaan dib uu ka dhaco natiijo ay ka imaado ma jirto marka nin bajaaj la ah oo wadadaas iska socda in la yiraahdo xarun dawladda dhibaato u geysatay kaale micnaheedu waxa uu aragnaa in si sharci darro ah qodobkaasi uusan ku sifoowin ayadana qodobka 18aad oo xafiiska ku soo eedeeyay waxa waaye ka qayb noqosho fal argagixisonimo marka xafiiska xeer ilaalinta wuxuu soo bandhigay marqaatiyo oo uu ka mid yahay gudoomiyaha iyo maamo guri milkeeda ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo baarihii kiiska intaasba muwakkilkeena maxamed xasan qof tiray maxameda falkan ama howlahan fududeeyay ama qayb ka ahaa ama wax buu ku sameeyay ma jirin qof cadeeyayna maxamed inuu waxaan ku cad yahayna ma jirto cadeemaha uu kaliya u haysan xafiiska xeer ilaalinta intaasay ahaayeen marka mudan gudoomiye muwakkilkeyga markuu dacwadiisii iyo wixiisii garmaqalkii wax qiraal ah uu ku sheegayo inuu dembigan galay ama xiriir la sameeyay ama ururkaasi argagixisada ah inuu ka tirsan yahayna ma jirto marka waxaa maxkamadda sharafta leh u soo gudbinayaa difaaciga oo intaasi ku kooban haddii qareenka saaxiibkeyga wax ku dirayo haddii kalena uu gabagabada u deynaya maxkamadda ay mahadsanta maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa muwakkilkeyga oo reer ilmood ah korriina ku jiro xooggiisa ku shaqaysto bajaaj la ah inay eedda xafiiska xeer ilaalinta iyo hay-adaha ay ku soo eedeeyeen inay maxkamadda sharafta leh ay diiddo nambar 2 isla maanta hadday go'aanka gaari karto ay ka shurayso maxkamadda sharafta leh 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya isla maantana xoriyadiisa ay soo celiso maxkamadda way mahadsan tahay xasan maxamuud shuuriye abtidoon goobe si waafaqsan 5 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed si waafaqsan 103 maxkamaddu waxay u akhrisay ADC si waafaqsan 104 wuxuu ku jawaabay faldambiyeedkii lagu eedeeyay in uusan gelin waxaan u gudbayaa 116 difaaciga mudane gudoomiye garsoorayaal eedda xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay muwakkilkeyga qiraal uma ahan si waafaqsan 163 xafiiska xeer ilaalintuna caddayn eedda uu ku soo eedeeyay qodobada uu ku soo eedeeyeen maxkamadda horteeda ma uusan keenin baaraha markaan wax ka weydiinane dalaalnimo bay ku eedeysan yihiin buu yidhi oo dalaalka guryaha bay tuseen tusistaas guriga uu tusay xataa wuxuu sheegeen inuusan xataa isbarista uu isu keenay xataa uusan aan waxba lagu karaynin mudane gudoomiye markii aan wareysta muwakkilkeyga wuxuu ii sheegay inay gabdho dalaal u yimaadeen oo nin u soo diray oo asna dalaal kala ah ninkii guriga la kireynaya la tusay laguna heshiin waayey lacag la kala qaatanay la isu celshay dowrkii ay ku lahaayeen intaas ahayd lacagtii kirada ahayd oo la bixin lahaana la celiyey sababta lagu khilaafku ka yimid ay ahayd in degmada in laga diiwaan geliyo mudane gudoomiye garsoorayaal xeer tilmaamaya ama wacyigelin tilmaamaysa dulaalaydu hadduu qof guri doonaya u yimaado intaysan qofka iyo milkiilaha istusin inay xafiiska la geeyo oo laga soo diiwaan geliyo qodob tilmaamaya ma jiro
qof dadku waa Soomaali wajigana ugaba dhegsana inuu shabaab yahay waxaan dhibtaa inay imaanayaan xoogaal uma ahan hadii jeelay waxbay kireeyaan dadka isu geeyaan mas'uuliyaddu waxay raacdaa kireystaha iyo laga kireystaha baa mas'uuliyadda iska leh dalaalku mas'uuliyaddaas waxba kuma leh anagoo u gudbaya 119 gabagabadeeda nuxurka aadayaan mudane gudoomiye dambiga muwakkilkayga lagu soo eedeeyay mana gelin dambina ma gelin asaga iyo dalaalayda kale toodba wax dambiyo ay leeyihiin ma jiraan waxa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in badan baa la baarayay la soo celcelinayay aakhirkii la xiray hadday dambi leeyihiin dalka isaga bixi lahaayeen xog ogaalna umaysan ahayn qofku wuxuu og yahaana lagu ciqaabaa wuxuusan ogeyn laguma ciqaabo xorriyaddeeda inay maxkamadda siiso muwakkilkayga si waafaqsan 112 maxkamadduna waafaqsanta gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho